madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu heliyo madaxweynaha dalka Eritrea Mudane Isaias Afwerki ayaa kormeeray cutubyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababar u jooga dalka Eritrea. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyada oo si gaar ah u tababaran waxa uu ku galay xaaladoodii nololeed isaguna warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mahadceliyeen booqashada ugu yimid dalka Eritrea. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay ciidanka ayaa ugu warbixiyay qorshaha dowladda sugidda amniga guud ee dalka iyo xoreynta deegaanada ay ku dhumaaleystaan argagixisada kuwaasi oo cadow ku ah horumarka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa adkeeyay fulinta ballanqaadkiisii ku aadana soo celinta ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea isagoo xusay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu farxi doonaan xuduudoodii halka ay cadowga ay ka naxi doonaan muuqooda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa si dhammaystiray ayaa sheegay dowladda Eritrea ugu mahadceliyay tababarka ciidanka qayb ka qaadan doonaan xasilinta amniga dalka. dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu heliyo dhigiisa dalka Eritrea Mudane Isaias Afwerki ayaa booqday goobo ku yaala dalka Eritrea oo ka socda mashruuc horumarineed.